jaadadka hanuunka Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa ugu weyn inuu makhluuqiisa u soo celiyo xaggiisa, kuwa dabaqsanayo tasaajidkiisa. iridaha toobadana waxa uu u furaa kuwa ay ruuxdoodu dhadhiyeen dembiyadu. qof ayaa sakhda dhexe u baxaya si uu u soo caasiyo boqorka boqorada, xubnihiisa oo dhammina waxay ku riixayaan samaynta xumaanta. laakiin Allah subxaanahu wa tacaala ilbiriqsigan waxa uu go'aaminayaa inuu hanuunkiisa gaadho qalbiga addoonkan inta aanu gaadhin biyo fadhiisinkan wasakhda ah. mar keliya ayuu isbedelaa, riyooyinkii uu dhisayna waa uu burburiyaa. qulqul cabsi ah ayaa ruxaya qalbigiisa, waxaana jiraya dareen hoose oo beddelaya jihadii uu u socday. mar qudha ayuu ismelmelayaa, mana tegayo jihadii biyo fadhiisinka wasakhda ah, balse waxa uu aadayaa masjidka. heshiis cusubna waxa uu la gelayaa Allah haadiga ah. allahayow inaga yeel kuwii aad ku hanuunisay waddada toosan.